daawadayaal isaguna uu iskeen bari doona magaciisa saddexan halkan uu kaga dhawaajin doona waa rogcada saxafiya oo gobolka cagaaran gobolka cagaagan bana cagaaran waayahay ku soo dhawaado magacaaga waa Cawka Legacy channelku aad baan ugu dhawahay Cawka Legacy runtii magacayga waxa la Jaafar Cawl Helaliyo waxaan kamid ahay wariyaasha gobolka Gabley waa soo gashanay Jaafar waxaan horta ku faraxsanahay markii uu horeysay aanu aragno hibadii أحمد حسن عوكي ورنتي كم ده ورياش الدجاجة الصومالية اللي جوت عليه فرحت وين بين نوت هاي وأنا سود وين برنامج كان هبدو وإحنا مسنا هاي إن هنتيجو كلية لا يسكمر دحله إن هبدنا لا يسكمر دحله مركب محمد إنك وأحمد حسن عوكي دلالي مكي ورئيسنا وإحنا مسنا إنه هبدنا دحله هذا قصيوت تاريخ ذي أبو إن شاء الله الله نوع أسطورة ونوضعنا محمد جعفر وحن كويدين ربي هوت الجبيل ذي هرية جبيل ذا حدا واكل الدويين هل كان برحدنا أن تاجرنا هيوت الشحبة أو قرعة أو قرد مذوبة وكسو جيهين ديك باب الهوست تاجرنا حي جبيل ذا عصب بل ودوين كده أنا قوانكو أم بنقاري بقى مكاسن دي هالكي بدي العمري بدنا واضي على تنا بالواي هذا ده جبيل ذا عصب هذا الشيء أرت جبيل ذا عصب ما شاء الله مجالد وين بلارتي وين بلارتي طب أهان ما أنت مجالد وافر حافظات والله أكبر كو وذكر نيو جبيل يستيت وين كمي مركورنا حق نيو جبيل يستيت وين كمي مركورنا واحد هيد وذكر يلا أكبر مركا ما دامو بابليشن كي بولشة يكوري صور اسمها مجالد نكوريا جبيل الناس يدوق لو حكمت هاي مجالوين كسومالان لو صوت شمتو حلقة الحيسك أو مجال قبل عقارن أو روب كانوا كقاعدين قف كمري هذا أنا وكسون نقطة ما شاء الله هتكو العليسي قبل عقارن هل كان قبل كان كوير نقلنا قبل لماذا هتميان لا صحيح نيو أرتا شروطه ويدما يسترت إن أنصحين تنايمك أي دعوة صارنتها ومعلم اللي يبغى بلا دقيقة ما أنت معلم تذكر هيك بلا كرر تشوف في عين ما شفته هبين كدويد هبين كدويد سؤالها لو يديني مدحوينه كم يدحيد لكن هي النضل فدية صدق دقيقة هذا والله إني أنا وحنا أمسنا هي إن مالين ويلاهي قرين قبل خلنا السياق يقصد تذكر هذا سمير لما مرخل العقون صدا قبل كن قبل هنا العقون سنة لكن مالين تاسين سوينا لكن شروطه واحد كفر عسنا إنه قبل كبوحي أو بحديث يد قاليس ومن يسبحني هاي مرخل يجي قبل كعجارنا دواء مال خيرات طبيعي جاي إلهي رب وكوب ذي هاي ومال قلبي يقلوب تبورون مركها مقالنا الرب كنا قاعدين وقرتي أن أنت أن واحد كلا ديجي شواب تجيب لي إمساد ضح بالله ده هاي وبيبهنا إلى أنت عارفين ضحية أن توجع وداير قلبك توجع بقى ويقعنانه إمساد ضح بالله تجيب لي ورتجيب لي نيو إلهي markaan leeyahay arimaha dabiiciga wax badan buu ilaahay ku galaday tooxiyo badan bay leedahay bustaanay leedahay beeray leedahay tiro male way gobolka gobol balaaran way gobolada Soomaaliland ugu balaaran buu kamid yahay imikana dhaam baaba la sameeyo reer Gabley waxa la yiraahdaa badna way yeeshaan dhaamkaasina waxa loogu talagalay in si biyaha dhulka ku jira caruurteena dhabarka inoogu jirta ay hadhow cabaan in dadku ku kala faylaan marka waxaan rajeynayaa in dhawaan biyahana la sifayn doono oo dawladdu ay qorshe ka soo saari doonto insha Allah ta'ala wayna balaaratay oo Gabley oo maanta sidii hore ma aha oo dawladdu hoose halkay marayso insha Allah waan soo eegi doonaa waxa kale oo jirta in aynu madaxtooyada ku cusub horta sidoo kale waxa farxad inoo ah in magaaladii Gabley dhismayaashii dawladdu ay ku soo badanayaan waxa laga taabageliyay duleedka bari ee magaalada xaruntii madaxtooyada oo markuu madaxweynuhu yimaado uu ku nasanayo oo uu seexanayo sharaf weyn oo tahay in magaaladeennii ay xukuumaddu il gaar ah ku hayso oo si wanaagsan dhismayaashii ay uga hirgeliyaan si loo soo majeerto magaalada ayaa arrimahaasina ay mas'uuliyadooda qaadayaan waa aniga oo Maxamed Cawka oo Jaafar oo halkan ku wareysanay gobolkii cagaarna inkastoo gobolkuna noo soo guuxayo laakiin afka hadaynu ka dhigno malaha gobolnimadu waa la siin la Jaafar waan rajeenina in insha Allah ilaahay gobolka noo soo dawladii laakiin adigana wax qulad dardaarmaya inaad insha Allah hibadii aabaha aad si aan baqaado waayo way kugu jirtaa way ka muuqataayo horena waan kugu sheego hantidan la iskama dhaxlay hibadana waa la iska dhaxlaa waayahay aad iyo aad bad maasantahay waay magacaaga adiga oo Cawka Legacy ku soo dhawo baan ku leeyahay horta waan ku salaamayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa anigoo xasuusan aabahay ku dhalay taariikhda saxaafadda waan gartay
channelkana waan ku dhowahay magacaygu waa Cismaan Cabdi Bade Cismaan Karex waan gartay Cismaano waxaan ku weydiin rabay de waxaan soo galay Gabiley cusub waaye niyo Gabiley baan soo galay waayahay de waxaan yeelateen bad yeelateen ha badda ha wali ma dabaal tagtay waan soo arkay laakiin kuma dabaalano de sidii hore imika ma yihi oo waan cuslaaday la furin oo meel dabaal iyo wax meena lahayn imika de kulli imika waan cuslaaday ma ogtahay waan gartay maadaama aan cuslaadayna de ma dabaalan karaya imika waan gartay marka waa sidaa waayahay aad iyo aad maxaad odhan lahayd channelka maxaad nafari lahayd oo daawadayaasha maxaad fari lahayd channelka waxaan leeyahay horta waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay ku soo dhawaada de saaxadda siyaasadda saaxadda saxaafadda iyo YouTuberiska iyo channelada iyo page-ka ku soo dhawaada waan gartay page ama channel wuxuu horumar ku gaaraa waa cadaalad ummadda u sameeyo waan gartay karay xiga iyo kaaw heeli uu ka ilaali iyo siyaasadda dhax ka ahaato barnaamijka wadnaa waa jiraab iyo jawaab bas intaas oo dhax ka weydiinaa barnaamijka wadno hadaa ku dhaco kulay taariikha waad haysaa hadaa ku dhaco billaha dhow la yireen odaygii baa garan waayay su'aal may la oran maayo waa garasho iyo garasho la'aan bal waayo waan ku nasiibinay waayahay degmadan Gabiley gudoomiyay ugu horeeyay magaciisa saddexan ilaytaasad kulay ka magaciisa saddexan waa 91kii waxaan magaciisa saddexan ma hayo laakiin waa ceelaabe gudoomiye ceelaabo haayo waa muddadii SNM wadanka haysatay labadii sanadood ee SNM wadanka haysatay iyo la kowsaday markii dawladii SNM wadanka qabsatay laba sanadood baa xukunka haysatay gudoomiyihii u horeeyay mujaahid ceelaabo Allah naxariis war ishaad karid waayahay halka qodaalkana ma yar gudubna soo gudub ha caadi waayahay labada dibi ee laba qoys kale leeyihiin ee beerta ku qodanaya labada dibi waxa loo yaqaan magacyadooda de qindi baa la yiraahdaa de ma qindi waa la yiraahdaa laakiin magac baa loo yaqaan oo hees baa marta balakaana yara may taimka ma xasuusan karo waayahay taariikhdii la aasaasay raadiyo Hargeysa taana waad galan 1942 wariya ishaad karid ishaan ka riday wariya taariikhiyaha maana waayahay Gabiley de halka siyaasadda ma yar gudubna waa caadi weydii wallahi weydii maxay kula tahay waayahay golahan baarlamaanka iska qabsanaya de golaha baarlamaanka iska qabsanaya maxaad fari lahayd horta nin baa yiri nin baan nin faano wuxuu yiri anoo neefaan qalayo anna waan qaybinayay uu intaad qalaysay anna waan qaybinayay xukuumadda ku fogaan maaye oo de maxaad lahayd baa la isiraahdaa imika waan ugu celinaa de waa caadi iyo aniga imaba soo eega waan codeeyay sidoo waan doonayay 30 sanadood baan qaranka u shaqeynayay de anu waa sii jeeday ma waxaad leedahay ku soo noqoad leedahay imika de waxa baasha in dhinacayga laga qaato oo de qalinkii la qaato meena kula ahayn waa saxab bal adiguna waxaad ku tiraahdaa war balodayga soo eegna de 30 sanadoodna waan soo shaqeynayay qarankaan u shaqeynayay waa ku soo eegi doona kale waa daawanaya wadadweynaha daawanayo ka mid noqon doona insha Allah wada odaga waxaan leenahay odaga soo eeg waa sax Soma de kulli aad xikaayadii odaga way ka muuqataa inaga iska qosolay galabtay waayahay waa rog cadaagii Gabiley oo halkan ku kulwanay way aad baan ku salaamay aad baad maasantahay taagan waa rog cadaagii Gabiley magacaaga adoo ku bilaabay oo ku soo dhawaad ka lagasay waan ku soo dhawaay adeer magacaygu waa Maxamed Abi Madar Maxamed Heer Sare ma sha Allah marka Heer Sare halka aan jawaabka yar weydiiyay Heer Sare sidoo ugu baxay oo awoow ah talaha ma aaba laha magaca oo dhaxal weyn oo aabay ka dhaxlay weey waan gartay waaya Heer Sare kalmada wanaagsan waa halka noo yar halays bulaha ma sha Allah oo dadku oran jiray wariya Heer Sare wax kastaba Heer Sare oran jiray ma sha Allah waayahay barnaamij baan wadnay Maxamed Heer Sare oo la yiraahdo jiraab iyo jawaab jiraabna waa deegaanka soo hasaawi iyo cawki legacy waa channel kana sameeynay maanta Gabiley baan ku sugannahay inkastoo reer Gabiley ay comment noogu soo qorayeen waa daridii soo dhaaf oo wajaaliya waxbaan deeyaan waanu ka balan gobolka cagaarnaaban Maxamed ku kulanay waaye Maxamed su'aalan dadka weydiinay adigoo raaliya su'aalaha dad nooga jawaabto kale waa taariikhaasi waxa de lambar 1 su'aasheeda koobaad waxay leedahay gudoomiye ugu horeeyay degmadan Gabiley magaciisa saddexan
waxa laga yaabaa inaan magaciisa saddexan sheegi karin haddaan laakiin isku dayo waxaan u malaynayaa koob sagaashankii sheekh maxamuud sheekh xuseen nuuriye inuu waan aad u jeclahay waa laga horeeyay malaha haddii ay laga horeeyeen waxaa ka horeeyey qojobe iyo waxaan kala garanayay ninka kale ninba qojobana ka horeeyay qojobe inuu horeeyey iyo in kale amnoodku waa shuur laakiin ma garan karaya laakiin kaay ma xasuusto waayahay laakiin labada nin ma filaya labada waayahay waxa kale oo ku weydiin rabay radio Hargeysa taariikhdii la aasaasay maxamed waxaan filayaa in ahayd 1956 okay waayahay taan ka soo gudubno channelkan aan sameynay imika waa tunta socialkii lagu wada dhacay nin walba day gacantiisa ku wata maxaad baaqna fari lahayd daawadayaasha maxaad fari lahayd gabilaydan cusubna maxaad noo iftiimin lahayd horta saxaafadda mid guud baan fari lahaa haye oo aan inta badan aad u yar dhaliilo mararka qaarkood haye naan isdhahdaba inaad tala siisa ayay malaha ahayd waan gartay marka la samaynayo fikirka ama ra'yiga dadka marka la qaadayo haye ra'yiga dadweynaha waxa la sameeyaa sampling wax la yiraahdo dabadeedna xisaab baa lagu soo saaraa waxba ku soo baxaya waayo samplingku marka opinion poll la samaynayo haye waxay u baahan tahay in si cilmiyeysan ama methodology wax la yiraahdo research methodology in qofku raaco dabadeedna qaabka uu marka dadka ilaa waxa la doonayaa in dadweynaha gabila ku nool oo dhan cid matasha la helo laakiin meel qura hadduu istaago afar qof kulba su'aal weydiiyo taasi ma qurux badnaanayso waxaanay keeni kartaa in ra'yigii dadweynaha markaa si qaldan loo turjumo oo waxaan ahayna ay ka soo baxaan markaa opinion pollka marka waxaan fari lahaa inay isku dayaan marka ay researchkaas noocaas oo kale ay samaynayaan ama ra'yiga dadweynaha ay qaadayaan inay si cilmiyeysan markaa u qaadaan ayaan saxaafadda kula talin lahaa channelkaaga marka ay noqoto horta kulley waxaad ku abtirsataa wariye nin weyn oo caana ayaa ku dhalay allah u naxariisto aan aad u jeclaa ummadda Soomaaliyeedna ay aad u jeclay dhammaanteed haybadii wax badan oo ka mida waad leedahay go ahead halkii adoo alla yiraahdo kasiiso adoo alla yiraahdo rajeenaya maxamed heersa waaya kaas waxa waa maxamed heersa